بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصحابتي قيمها بدن ميل walba joogtaan soo dhawaada kulay waa xili dambo laakiin dadaal dheer iyo waliba waqti badan aan gelinay sidii aan isku heli lahaa walaalaheena qiimaha badan Faizo iyo Saadaq ayaa ugu dambeyntii waxa suura gashay saacada ka hor adiga ku dhawaad dhowr saacadood inaan wada hadlaynay marka si kal gacayl leh oo Soomaalinimo ku dheehan ay runtii ay u wada hadleen marka waxa marka ugu horeysa aan rabaa inaan asxaabta meel walba joogo qofkii saqdhax ay u tahay waxaan leenahay habeen wanaagsan teamka kale ee ama dadka kale ee subax ay u tahay waxaan leenahay subax wanaagsan dadka galab ay u tahay galab wanaagsan aan leenahay kulay anaga xageena haatan waa xili dambe waxa la marayaa waa sideedii oo ama labadii habeenimo ayaa la maray laakiin wax walba waxa ka weyn dadaalka markaasi in ay is arkaan ama ay wada hadlaan walaalaheena qiimaha badan Faizo iyo Saadaq dadka Soomaaliyeed badana labada qofood marka ay is hayaan ama xurguf laga dareemay dhextaal waxa ka faa'iideysta shakhsiyaad kale ka faa'iideysta oo raba dadka markaasi inay iska hor keenaan dadkaas oo caan ah oo meel walba laga yaqaan social media isticmaala inay dadka ay u kala warqaadaan laakiin wixii waa la sugu weynay in berito ay heshiyaan maadaama wax walba kuleelka lagu gooyo ama geesalo aad kuleelka lagu gooyaa in ay caaw ayagoo bad qaba oo caafimaad qaba oo isku niyadsan inay wada seexdaan ama nin walba uu seexdo ayaan runtii dadaalkan aan u soo galnay waxaana go'aan ku gaarnay in labadoodaba qofka kale maadaama shacabka Soomaaliyeed markay social media isku marsiinayeen hadallada gafka ah ama hadallada aan wanaagsanayn dadku way daawanayeen marka saas la ajligeeda heshiiskoodana shacabka Soomaaliyeed meel walba ha joogay iyo asxaabtooda inay arkaan marka farxad weyn inoo tahay caawa aniga iyo asxaab kale aad u fara badan oo arinta ka shaqeeyay Saahil iyo team kale aad u fara badan oo ayaga naftirkooda jooga maxaan ku yiraahdaa Talyaaniga jaalida Talyaaniga yar jooga oo gudoomiye jaalida ah oo Maxamed la dhaho asagan aad ugu mahadcelinay arinta ka shaqeynay live far badan oo la doonay in la soo galo caawa lagu sii horiyana intoodii badan waa joojinay dadka rabay inay sameeyaan runtii waa ka joojinay waxa rabaa marka Faizo inaan soo qabto oo ay walaalkeeda ay shacabka Soomaaliyeed ay la hadasho waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dad kale oo ayaga naftirkooda arintan wanaag ka tixraacay oo rabay dadka inay heshiyaan rabay oo dadaal badan ku sameeyay laakiin u suuragelin alxamdulillah walillahi alhamd marka arintan marka guul ay caawa ku dhamaatay cidii ku farxi lahayd waan soo dhaweynaynaa cidii ka nixi lahaydna waxaan leenahay nafta waayo dad Soomaaliyeed jiil Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo wanaag isku bartay oo wanaag wax isku la qabtay oo runtii in laga dhax shaqeeyay oo hadan la isku diray fidno laga dhax abuurayna ma wanaagsana mar walbana waxa la qaataa nabadda la qaataa labadood aad ugu mahadcelinayaa Faiza nabadda qaadatay Saadaqna nabadda qaadatay dadka kalena waxaan rajeynayaa inay ayagana ay u naseexayaan ay ku amaanaan nabadda ay qaateen labadooda ay heshiyeen inay ku dhiirigeliyaan ayaan rajeynaynaa si bari kama dad kale ay ugu daydaan ayaan rajeynaynaa asxaabta kale xumaanta waa la sheergareeyaa wanaag ina sheergareysaan ayaan idin kula dardaarmayaa goordha waxa rabaa Faiza inaan soo qabto kadibna Saadaq aan soo qabto ay idila hadlaan waqti kooban aan siin doonaa maadaama xilli dambe ay tahay ma doonay inaan sii dheeraado mar rabo mar walbana wanaaga in laga shaqeeyo waa muqaddas wanaag in laga shaqeeyo nabadda in laga shaqeeyo waa muqaddas maanta hadaan laba qofood xurguf dhextaal hadaan heshiisino waxaan rajeynayaa inta inoo dhimanna in ay ummadda Soomaaliyeed ay heshii doonto waddanka Soomaaliyeedna oo markaasi uu heshiinayo Faizo waxaan ka dalbanayaa haday daawanayso qadka ku jirto oo aan goor dhow la hadlay inay soo dalbato ayaan rabaa inay soo dalbato
ayaan rabaa si shacabka Soomaaliyeed ee na daawanaya ay u arkaan wanaagga markaasi jira markaasi inay arkaan faa'iido waxaan ka rajaynayaa inaad soo dalbatid ayaan ka codsanayaa oo arrintan markaasi ama aad aqbasho ayaan aqbalaya faa'iido inaad i aqbashid dadka Soomaaliyeed ay ku arkaan raalli ahada waa xili dambe kulay arrintan xurguftan dagaalka markuu socday hoola kale ku jiray safar ku jiray laakiin markii aan arrintan maqlay anigoo safra garteedii waa u fariistay faa'iido waa ku salaamaya taliya waa ku salaamay waa ka qaadsanaan Jamaal adigii dhamaan umada daawanaysa oo faraxsana horta inaan la soo wada galno muddo hore isku in dambeysaniga adiga caawa aad u qurux badan tahay qofka binaadinka haddii qalbigiisa nadiif yahay waxba kama halaabayaan qalbiga nadiif laga noqdaa haddaad qalbiga aad ka xuntahay wajiga kama qurxoonaanaysid aad u mahadsantahay Salmaan wahagag mar rabo inaan dheeraan waqti dambe inoo tahay shacabkii xumaanta idinka faafinayay aan rabnaa marka inay caawa arkaan wanaagiin inay arkaan quruxda wajigaaga saaran midaas mid la mid ah waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaad u sheegto niyadaada wax ku jira iyo walaalkaaga waxaan codsanayaa dadweynaha isoo wacayo dadka isoo wacay waxaan ka codsanayaa inay soo wicin please kada iyo wicitaanka haye Faiza waqti kooban aan haysanaa saadaq aan rabaa inaan soo qabto shacabka la hadal walaalkaaga xurguftiidii dhex martay oo cadow idinka faa'iideysan dhigi karnaa bal waxaan rabaa inaad kelmadaadan ku siiyaan doonayaa adoo waqtiga soo koobay horta Salmaan waa maasan tahay aniga wiilkaas walaalkayga waaye maxay haytooy dhibaato badan aan dhex martay social media waxa waaye de qaladaad badan baa la geystay asagana qaladaad badan buu Facebook ka geystay ma fahantay marka qaladaad badan baa dhacay Salmaan Jamaal qaladaad badan baa dhacay hay waa ku maqlaya ma qashaa Salmaano waa ku maqlayaa qaladaad badan waa dhacay waan ognahay waa wada hadasheen caawa si fiican aad u wada hadasheen waa ismarxabayseen waa si gaf badan buu ii geystay gaf badan buu ii geystay dhibaato badan buu ii geystay wax badan baa dhacay wax allaali wixii dhacay oo dhan horta qadar bay ku dhaceen ma fahantay anigana cafis oo leeyahay asagana maaragtay kolay calooshiisa ma garanayo oo maanta oo dhan baan wada hadlaynay dee qofka binaadinkaana qalad wuu ka dhacaa asagaba qalad buu ii geystay nafteedii dhan buu inqaabay saasay tahayna waa walaalkay aan jeclahay waxbana kama qabo wixii dhacay way dhaceen af alii masaabax Salmaan Jamaalow waa tahay cafis iyo masaamax walaalkaaga cafis waa cafisay soo ma adigana maxaad ka dalbanaysaa aniga intuu ii geystay oo dhan anaa ilaahay dartiis ku haraayo anaa naagnimadeeda ku haraayo anaa ragnimo rag nin raga u hadli lahaa anaa u hadlaayo waana ka haray arrintaas inay sii socotana ma ahan wixii waxaan kaa rabaa aad u mahadsantahay aad kaaban yihiin ma fahantay laakiin anaa ilaahay ka haray wiilkaas walaalkaygana cafis iga yahay aan iscafino caf alii masaabax shaydaankan dadka naga dhex shaqeynayo shaydaankaani ilaahay shartooda hana mootiyo wixii dhacana way dhaceen ma fahantay haye sidii shalay aad aheedeen si ka wanaagsan sidii shalay sidii waa inkastoo gaf ii galay oo walaalahayga gabar ila dhalatay oona weligeed ma rabno faa'iido waxaan rabaa okay waa maasan tahay ma rabno wixii hore u dhacay inaan ku noqono dhan ma rabno wixii hore dhan ma rabno cafi walaalkaaga asagana cafis ka dalbo asagana sidoo kale waa soo qabanaya cafis uu kaa dalbanaya wuuna ku raalgelinaya bal adiga horta cafis ka dalbo cafi asagana aniga cafis oo iga yahay waxa u qabo malahan maadaama aan caawa dhan wada hadlaynay wanaagii aan ku wada hadlaynaan hadda diyaa aan ku hadlaya saadaq waxa waaye waa tahay walaalkaaga waaye waa wiil walaalkaaga dadaal fara badan oo kuu soo galay maasha allah marka waxaan rajaynayaa inuu ku maqlayo isagana uu
ayaa ku haraayo naagnimadeeda ku hara maxaa la dhahaa geesinimadeeda ku hara kureejadeeda ku hara waa walaalkay soomaaliyeed abaal buu ii gastay abaalku ii galan maanta aqra allaha siiyo salmaan jamaal adigana waa ku mahadsantahay dhexdhexaadka iyo wanaagga aad samaysay allah ajir ha kaa siiyo insha allahu tacaala waxa waaye waxaan rajaynayaa in ilaahay sidoo ka dhigay ay noqoto waa tahay saas waa ilaahay sidoo ka dhigay noqonaysa sida u wada hadasheen horta waqtiga ay siiseen iyo sidaad iga ogolaatay adiga iyo asaga sidoo iga ogolaaday labadiin aadan idinkaga mahad celinaa waxaan talo kuu siinayaa adigoo intaas kaaga mahad celinayo waxaa jiro shakhsiyaad warxumo tashiil ah hadda ka hor waad ogeyd in lagu yiri salmaan lacag $1,000 oo iga qaatay waxyaala noocaas oo kale markaad ka daba tagtay aad ogaatay ninkii aad baartayna inuu ku maaweelay oo been kuusha telefoonka kaa dirsada waad ogeyd markii aad qadka soo wada gelinay marka waxaan rajaynayaa qof bani aadan ah wuxuu kuu soo sheegay inaadan aaminin qof bani aadan ah hadduu ku yiraahdo wax dambigaas ninkaas hebel waxaasuu ku yiri hadduu ku yiraahdo inaadan aaminin sharafaad leedahay sharafaad leedahay aad iyo saasaan kaa rabaa wanaagaaga iyo gabar soomaaliyeed aad tahay gabar qiimo lahaa tahay marka wanaagaaga inuu halkaasi kasii socdo waddan fiicanaad joogtaa mustaqbalkaaga iyo aayahaaga dambe inaad ka shaqaysid ciidahan kale ama shakhsiyaadkan kale ee arrimahan qabiilka u bedelayna waa wixii dalka soo burburiye waay marka ha ka yeelin faa'iizo cabdirashiid faa'iizo wadani sharafaad leedahay qiimaad leedahay waqtigaad isiisay iyo sidaad u aqbashay maya mararka waa lagu maqlayaa si fiican lagu maqlayaa sidii maaragtay horta ilaahay subxaana watacaala maxaa la dhahay salmaanow dadka qabiilka iyo qoriga ku jira ma ihi qabiil ma aqaani mana raadsanin dadka oo dadka qabiilka usoo raadsada ma ihi qabiilna ma aqaani ciddi iga aaminsan wanaaga u haayaa caawo ciddi xumaan iga aaminsanni ayagee u taalaa aniga gabar oo gabar qabiil miihi wiilkaas waa walaalkay qabiil iskuma baran maxaa la dhahayay ree hebelaataa iskuma baran wanaaga isku baranna ma fahantee inkastoo xumaan ay wax walba uu ku bedelo laakiin ani kuma bedelayo wanaagayga sharafteyda nimadeyda iyo wax kasta aa ku ixtiraam fiiri faa'iza sharafaa leedahay raaligelinta wixii waa gabagabaysay wixii hore iyo waxaas wixii live idinku dhex maray waxa adiga hadashay asaga wuxuu ka hadlay dhan dib ha ugu soo laaban ka gudub waa raaligelisay marka waxaan kaa hal midna waa kaala dardaarmayaa hadallada facebookaga kusoo qorayso wanaag ha noqdaan live dambe arrimahan ha kaga hadlin gabagabay iga ballanqaadkaas inaa ii samaysaan rabaa inaadan wax asaga ku saabsan inaadan ka hadlin inaadan live waxaan aad ugu mahad celinayaa salmaan jamaalo waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ka dhiidhisay xumaanteeda la faafinaayo waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa wadaadada oo run ahaantii igarabta culimada soomaaliyeed oo 4 ilaa waa tahay soomaaliyeed aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyarada soomaaliyeed aad baan ugu mahad celinayaa aadaad u mahadsan tahay faa'iisa sharafaa leedahay insha allahu tacaala biidnillahi baari qof walbana maaragtay waa kaasaa marka insha allahu tacaala wixii dhaca way dhaceen اوكي ما سنت فايزه شرفها لها فايزه شرفها لها مهد علين شعبك الصومالي وكو مهد علين انت كومنتي كسو هادليسو دhan way ku mahad celinayaan wixii dambe ku tahay gabar xanuunsan tahay caafimaad ayaan ku rajeynayna guuleyso hore u soco aadan ku mahad celinayna wanaaga karaac كومنتيada dambe soo socda aad soo qori doonto kuwa asaga kaga hadlayso wanaagiisa ka noqdaan عفسو إيجاهي ما فهمت عفسو إيجاهي أساق معك الضلبنيسة أساق محلال أساق محلال أساق محلال وقدم بينتي مالي واحد ولا الكي قواية وناد إلهي هالنطسيان لينها ما سنت ما شاء الله هذا ما سفايزو ما سنت وكم هادعلنا يا وحي دعوين أنا ما أنت إلهي كهر الحمد لله شرب العالمين عافمات كان ربي هايو ما سنت فايز هذا ما سنتاي فايزو ما هاد علنا تاسي فايزة هاyd فايز هذا كاga mahad celinaya sida wanaagsan nadiifka aad u hadashay waan kaaga mahad celinaya faizo ay ahayd
oo runtii arrintan wanaag ka muujisay marka waxaan rajaynaynaa isagana raaligeli inay ka baxdaan rajaynaya kole waxaan rabaa saadaq inaa asagana runtii yaro fara badan oo adduunka ku dhaqan aysan qaban ayuu qabta markii ugu horreysay oo isoo wacayay oo yidhahay gabadhaas raba inaan wax u qabto wuxuu muujiyey dadaal ma imaanaya xitaa su-aalaha aan weydiye waxaa ka mid ahayd marka si sharaf loo ku yimid turkiga si sharaf loo ku qaaday oo waddanka ku geeyey waxa shaqadu qabtayna waxaan ognahay dad fara badan inay oo sharciyo haysta ayaa samayn kara laakiin waa qof asaga waajibkiisa qaran gutay marka waxaan rajaynayaa inuu shaqada uu hayay uusan joojin uu dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan meel alla meelay joogaa inuu caawin doono gabdhaha soomaaliyeed iyo haddii noqon gabdho dhibaataysan rag dhibaataysan inuu caawin doono saadaq waxaan rajaynaya in lagu dayan doono shacabka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed inay ku dayan doonaan ayaan rajaynaynaa marka isagaan raba haatan inaan ka codsado inaan isaga aan soo qabto si markaasi uu markaasi uu isagana raaligelin oo markaasi fikirkiisa wuxuu ahaa mise gabadhu hadashay si la mid ah isagana inuu u hadlo ayaan rajaynaynaa saadaq waxaan ognahay si wanaagsan oo ay u hadashay iyo sidaas si la mid ah inuu isagana runtii u hadlaan rabnaa marka kuma dheeraanayno oo saadaqa iminkan sugaynaa inuu soo dalbado waa hagaag saadaqaan sugaynaa inuu soo dalbado وهاجاك صادق أرنا إن هاتنا سجنا عن كل قد كحنا رجينا يا و connection كيسة لكن واسكودي دون إن سوق بنو كل وقت بدنا إنك قادتي صادق وحرجينا إن الشعب الصومالي إنه كوكان عدونان سجنا إن سوق بنو كل هذا حلية وسوق بن كرتان بل واسكودي إن aan soo qabano wanaagga in markaas si loo soo jeesto waa lama huraan saadaq weli waa sugaynaa inuu soo dalbadaan rajaynaynaa hagaag haddaa soo qabanaya saadaqaan sugaynaa inuu soo dalbado oo aan runtii wiil dhalinyaro ah oo damiir leh oo wax badan gabadha u qabatay ama gabadha uu qabtay oo runtii aad aan ugu ammaanayno kulley waxaan rabaa caawa wixii ka dambeeya in barnaamijkan uu labadan qofood oo walaalahayna inuu halkaasi ku istaago saadaq inuu soo dalbadaan rajaynaynaa oo qabsado صادق وسلام يا صادق هذا طمع سنت هاي تلياني ما جوكتا مساء مالك له ما يا تلياني متو وحاوي سفرة هاي سفرة هاي إلهي أكوفو ضيو إلهي أكوفو ضيو فايزو ويسوق الشيء وين الله هذا الشيء وحي قبتي شاكتي لكن وحي ترعفي سويقية هاي أديقنا وحرب سيدي أيضا هذا الشيء سي لمدا إناد هذا الشيء وددك كدا وانا إناد niyad wanaagga markii hore aad u muujisay shacabka Soomaaliyeed inay dareemaan in aad wali wanaaggaasi shacabka Soomaaliyeed aad u haysid runtii shaqada aad qabatay waxaan qiraynaa dad fara badan oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin xitaa ay ku jiraan inay qaban waayeen oo adiga waqtigaaga aad hurtay waxaan marqaati ka ahay inaad mar isoo wacday oo arrimaheeda igala hadashay oo adreeskeeda aad ku siiyay aad la soo xiriirtay aad Turkiga timid aad dadaal fara badan samaysay
aad u soo beeldaraysay dadaalkaasi runtii waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid oo aadan ilaabin marka saadiq inuu ka go-aan rajaynaya laakiin mar kale soo qabanaya waqti ma jiro saadiqaan siinayaa kulley waqtigana waa ciriiri asagana safaru ku jiraa inuu soo qabsadaan rajaynaya saadiq haye waqti safaraad tahay soo koob haye shacabka soomaaliyeed ku daawanaya maxaa leedahay بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلامي walaalahayga qaaliga ah ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto maaragtay walaalkiin Saadiq Abdiid waxaan raaligelin weyn ka bixinayaa maalmahan safar ayaa ku jiray oo maaragtay safar ayaan ahaa waxaan joogaa weli Jarmalkaan joogaa mooshin dhexdeeda maasha Allah marti iyo dhalinyaro aan maaragtay marti u ahay marka waqtiga ka hadda isheedin waa diyaarsanahay inaan baxaro safar aado marka waa ku salaam walaalkay sharafaa leedahay shacabka Soomaaliyeed qof walba abaalku galay way og yihiin abaalkaad faa'iido u gashay qof aan ogeyn ma leh heer gobol ama heer dawlad dadaal fara badan ay muujiyeen ay u suuragelin ayaad runtii adoo baasaboorka yarka haysta dad oo baasaboor weyn haysta oo soo safri kara u dhow halkan u dhow turkiga u dhow oo faa'iido xiriir la leh isku qabiil ma tihiin isku ehel ma tihiin waxaad isku tihiin ma damiirka Soomaalinimada ay ku soo dhaqaajiyay aad u timid aad u kaxaysay aad Yurub geysay runtii aad caafimaadkeeda uga fikirtay shacabka Soomaaliyeed way ku og yihiin waxaan rajaynayaa shaqada aad qabatay inaadan istaagin warar xun oo badan la kulmaysaa waxyaalo badan oo dadka liddi kuga ah la kulmaysa sabar muuji wax walba aad samaynayso dar Ilaahay u sameey waxa lagu leeyahay Saadiq saas way lacag u dhacay balaaya la sheegi doonaa waxaas oo dhan lama rabo dhig jalaq inaad u siiso horay inaad u socotaa la rabaa horay inaad u socotid ayaa la doonayaa Soomaalinimadaada iyo damiirkaaga islaamnimo inaad kor mar walba ka dhigto aadan caruurta yar-yarka meelaha kala qeylinaysa ee social media dadka caynaya qabyaalada ka hadlaya inaad dhig jalaq u siin dawladnimadan inaad madax saarto laba kalmadan ku siinaya adoo safar ah gabadhii abaayadana way hadashay haddaadna saa u wada hadasheen iyo waqtiga ay siisay iyo sidaad u ogolaatay inaad la hadasho aadankaaga mahad celinay soo dhawow horta wax walba waxa waaye halhalka iyo waanta iyo wanaaga aawado horta waa kaaga mahad celinaa samaan hadday sidaan aniga adiga iyo oo faa'iido aan u wada hadalnay faa'iido meen u hadlin maaragtay si ka duwan ayay u hadashay marka waxa waaye wax walbaba horta Ilaahay dartiis ayaa aniga wax u sameeyay maasha Allah faa'iidona way og tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxa ay way og yihiin marka waxa waaye wax walbaba oo dhacay oo maaragtay horta wax walba waxa ugu muhiimsan Soomaalnimo iyo walaalnimo u qabto faa'iido waxay in badan isoo xiriirisay isoo raadisay way weysay haddii adiga xaggaaga ii ka soo martay oo maaragtay maanta waan iyo xal ii raadgelin ka bixisay walaashay faa'iida waa qaba raadgelinta ka bixisay inay maaragtay dhibaato ii geysatay anigana waxaan ahay wiil Soomaaliyeed u kacay ummadiisa Soomaaliyeed u kacay mar walbaba maaragtay waxaan dhihi lahaa dhibka wax walba u dhacay oo lii geystay Ilaahay baa maaragtay iga abaalmarin doono alxamdulillah maantana aad iyo aad u fiicanahay marka waxaan rabaa inaan maaragtay walaashay faa'iido oo Ilaahay dartiis aan wax u qabtay inaan Ilaahay dartiis aan u caawiyo oo Ilaahay dartiis oo aan mar walbaba aan u garab istaago shalay sida ahayd iyo maanta sida tahay mar walbaba aan diyaar u ahay maaragtay siday u dhaqmatay siday waxa waaye Ilaahay og yahay maaragtay waxaan rabaa inaan iska cafiyo واسكع فينيسا ما شاء الله إذا ساسا كاروا أجري حسنات الله كسي أيضا أجر الله سيو واحد تهين لبا قفوض ولا اللي يراه ورنتي ضمير له مركز ضدك الضمير كله إن ضمير كله قدي لمربنو ضد حالي نوعي قريين ضد ضمبه العابين يا مجرتي وحيال الله ميتكا مركز ضميرك كوجرو ضد اللي يرفر بدن وحرجينا يا إني كوجو ضيدان أي رجينا يا ويلي جانا وضد هيسو هكليحن qof walba Soomaaliyeed oo dhibaataysan hada aragto caawi wixii la raba laga sheego hal lagu caayo hal lagu aflagaadeeyo ha u joojin fiiri arimaha noocan oo kala aniga dad far badan caawiyay
24 saac waxaa arkaysaa dad ku dhahayo salmaan sanwi lacagoo qaatay wuxuu dhacay wax sidaa laakiin waxaasi dheg jalaq looma siiyo adiga waxaa ku og bani aadan shacabka Soomaaliyeed ku garanayo qof hadduu ka masiirsan yahay wuxuu rabo magaalada ku gelinaya uu ku caynaya laakiin adiga waxa laga rabaa shaqadaada iyo Soomaalinimadaada inaad hore u socoto dad far badan aad niyad gelisay dad far badan aad kugu dayday dadkaas kugu dayda marka inaadan ka niyad jabin oo aad niyad jab inaadan ku ridin aad hore u sii socotaa la doonayaa iyo inaad shacabka Soomaaliyeed aad caawiso sharafaad leedahay Soomaalinimadan kugu ogaa wiligaaga waa mahadsan tahay mar walba maaragtay shacabka Soomaaliyeed oo u taaganahay shalay sidaa wax u qabanayay oo aan samafalay saadaq qabyaaladiidu ahaa ayaa maanta u ahay kullaytuba waxa waaye wax walba way dhacaan wixii u dhacana maaragtay ilaahay dartiis ayaan maaragtay maanta wax ka fiican ma lahan ilaahay dartiis ayaa maaragtay maanta ugu dhamaaday insha Allah hadduu ilaahay raado walaashayna faa'iido waa cafi maaragtay intii ii geysatay kullaytuba waan ogahay hadda leefku waa daawanayay si fiican may u hadlin way ogtahay ay sameeyay maaragtay waxyaabahaasna insha Allah dib ugu naqad doona insha Allah hadduu ilaahay raado sharafa leedahay saadaq aan kula kaftama timaan goorma jaraysaa timaha insha Allah hadduu ilaahay raado wadankeena marka noo noqdo marka wadanka noo noqdo jaraysaa insha Allah war sharafa leedahay safarkaaga Ilaaha ku fudeeyo Jarmalka hadaad joogtid waxaan ku farxi lahaa shacabka Soomaaliyeed ay ku farxi lahaayeen ina adoo bari la soo sawiran aad u tagtid oo live aad soo wada gashay hadda arki lahayn sharaf ay noo ahaan lahayd ama ayada ay ku soo wacdo waa rajaynayaa kulay aniga waxaan aaminsanahay niyadaada iyo qalbigaaga inuu saafiya oosan wax waqdad ku jirin oo aad runtii wixii dhacay oo dhan xalay dhalay ina ka tahay aan rajaynayaa damiirka ku soo waday oo Talyaaniga ka soo wada adoo baasaboor yar wata oo aad ku timid Turkiga oo ku kaxeysay damiirkaas inuu ka dhiman rajaynaya aad hore u soo xigto marka xoolahaaga hore u wad dhibaatadii ku gaartay iyo wixii lagu geystay iyo wixii dhacay oo dhan si u dhaceen iyo wixii isma weydiinayno waxaas way dhacay waa ka gudbaynaa dad inta laga sabraa wixii dhaca laga soo gudbaa cafis la kala qaataa qofkii sabraa sadle nabigeena naxariisi nabadgelyaha tay korkiisa markii saxaabiga reer Ala Yaasir markay Quraysh ay cadaabaysay markay diinta qaateen wuxuu yiri isbiru ya Ala Yaasir inna maw'idukum aljanna sabra reer Ala Yaasirow balanteenu waa janno marka qofkii sabra mar walba sadle marka waxaan rajaynayaa wax walba kugu dhaco sabr waa lagu caynayaa waa lagu aflagaadeynaya waraadan ogeena laga sheegay xumaana laga sheegaya waxaas waa soo aragnay waadna arki doontaa waadna kulmi doontaa laakiin annaga waxaas aan sameynayno ayadaas noola geysanayo haddana shaqada ma joojin qof walba waa caawinayna ciddii ka xanaaqaysa ka xanaaqdo waxaan rajaynayaa adiga oo kale inay bataan ayaan rajaynaya marka niyad jabin aan ku leeyahay kulley noloshaadii iyo inaad dib u soo dhisto dadaalkii farax badnaa muddada farax badan aad Turkiga joogtay wixii ka baaba'ay inaad dib u soo dhistaan rajaynaynaa gabadhana inaad la xiriirto sharafay tahay caawa shacabka Soomaaliyeed ay ku daawanayaan inaad runtii wanaagaasi runtii ay ku hayaan saadaq ugu dambeynta maxallada dhammaan horta waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga ah ee shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waa u mahadcelinaa sida wanaagsan ee maaragtay dibka igu dareemeen maanta igula damqadeen waxaan dhihi lahaa mar walba meel walba aad joogtiin waxaan ahay maaragtay waa walaalkiin saadaq qabyaaladiin gabadhaas walaashay ah qaladka weynaayay ee iga gashay waxaan u cafiyey ilaahay dartiis ayaan u cafiyey ilaahay subxaanahu adduunkan waxaa waaye waa laga tegaa waa laba maalin walaalkay salmaan jamaal adigana maaragtay sida wanaagsan oo aad maaragtay faa'iido aad maaragtay kula soo xiriirtay maaragtay shalay adiga maaragtay gabadhaas oo aan kugu bartay oo maaragtay si wanaagsan oo walaaltinimo ah oo Soomaalidu ku jirto dameernimo ay ku jirto adiga shalay ugu baray oo maaragtay oo mataqaanaa aan kugu arkay adigoo maaragtay gabadhaas caawinayo kullaytuba dadaalkii aad bilowday ayaan dhamaystirkeeda aan yeeshay waxa waaye ilaahay subxaana qaadir waxaan ka baryaa inuu maaragtay gabadhaas oo walaashay ah maaragtay aad iyo aad u dhiban tahay in ilaahay maaragtay subxaana qaadir ilaahay caawiyo mar walbana maaragtay kullaytuba waa isla joognaa aniga ayada maaragtay maantana qofkii gabka loo geystay oo sida xun loogu dhaqmay oo maaragtay
inta intii Soomaali ay dareentay oo ogeed u dhacday alxamdulillah maanta waa ka nabad qaba xorriyadeedu waan haystaa dukumeentiyada dib waa la soo celiyey alxamdulillah bil ibar waxaa waaye waxaan ku jiray bil ibar meel waxaan ku jiray oo xabsi ah waa tahay saadaq ilaahay subxaan qaadir waa ka soo bixiyay alxamdulillah way dhamaatay sharaf baa leedahay walaashay dhibkaas badan ii geysatay iyo maaragtay waan ka cafiyey oo ilaahay aad u mahadsantahay waxaan ku cafiyey maaragtay Soomaalnimo shacabkayga Soomaaliyeed iyo walaalahayga Soomaaliyeed oo mar walba i garab taagan ina jecel ayagana waxaan ka codsanayaa in ay maaragtay cafiskaas ay maaragtay ay ugu raacaan adduunkan waa laga tegayaa maaragtay gabar shalay waxay ahayd gabadhaas gabar walaasheena oo aad u dhiban qaladaadka ay gashay iyo gabka ay gashay maanta maaragtay waatana oo maaragtay adiga kusoo wacdo aad baa u mahadsantahay saadaq sharaf baa leedahay dharka aad xiran tahay calankana waxa waaye qiimo weyn oo noo leeyahay weligaaga xirnow aad u mahadsan tahay safar wanaagsan asxaabtaada noogu salaan guul ayaan ku rajaynayaa gabadhana faa'iidana la xiriir xiriirkiina ha wanaagsanaado dad badana ku naxaya markaad xiriirtaan labadiina marka aadan kugu mahad celinaya saadaq timo weyne waa mahadsan tahay waxaa jira dad fara badan oo bidaar laha jiro oo turkiga jooga oo bidaarta loo daaweynayo oo timahooda meelo kale laga soo qadqaadaya marka way ficnaan lahayd xoogaa haddii aad ku caawin lahayd samafalnimada ma xoogaa haddii waxay timaha hataa waa ku diri lahayd waxay haddii aan karsamo samafalnimada maaragtay aan sameynayo aan turkiga ku tegey ayaa maaragtay soo samaystay marka waxaa dhihi lahaa samafalnimo haloo tagaan dhihi lahaa meel walbo ee turkiga ka mid tahay waa mahadsantahay saadaq sharaf aa leen aadan kaaga mahad celinaya guuleyso habeen wanaagsan waa ku mahad celinaya saadaq waa mahadsanid bye bye saadaq waa u mahad celinaynaa runtii wanaagii iyo weliba sida wanaagsan uu markaasi noola hadlay qiimo ayuu leeyahay marka shacabka Soomaaliyeedna waxaan rajeynayaa faa'iido iyo saadaq arintoodii halkaas ayay ku soo gabagabowday faa'iidana waa u mahad celinaynaa saadaqna waa u mahad celinaynaa marka in wixii hal mar waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa oo walaalahayga i daawanaya kii oo aniga i taageersan iyo kii aniga jecel iyo kii aniga i neceb iyo kii waxyaabaha xun waxyaabaha qalqaldan meelaha ay maaragtay ku faafinayaan ugu jecel iyo amba ugu neceb waxaan dhihi lahaa walaalahayga Soomaaliyeed walaalahayga tiin Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inaad ii soo duceysaan wadankayga Itaaliya u laaban doonaa insha Allah safara ahay safar salaamo waa maqli doonaa markaan هذا ما سنتهاي runtii saadaq oo mahad celinayna faa'iidana oo mahad celinayna runtii sida wanaagsan loo duceeyo labadooda hal loo diro fariimo runtii oo qalbigooda qaboojinayo loogu mahad celinayo wanaag ay sameeyeen ayaan rajeynayaa marka in loo diro saadaq waa mahadsan tahay waa iska jari kartaa saadaq sharaf baa leedahay safar wanaagsan ayaan idin rajeynayaa dadka kale dadka waxaan la hadlayaa asxaab waxaa jirto oo labadan habeen ku hayay oo ma og meel ay joogaan Yurub iyo Mareykan meel ay joogeen oo dhahay arintan waxa ka dambeeyay Salmaan ka dambeeyay waxaa la dhahaa hadal aan micno lahayn dadka noocaasna ma wanaagsana qof weyn oo qaangaar ah oo social media inuu soo fadhiisto wuxuu rabo ku hadaaqayo waxaan u arkaa runtii waxaan micno lahayn marka qofka noocaas oo kale waxa leeyahay boorkina iska jafta wanaagsan oo aad wanaaga aad u horseedo iyo waxaan arkayay shakhsi kale oo kala qadqaadaya shacabka Soomaaliyeed mid dhahay shacabka koonfur waa sidan shacabka Soomaaliyeed waa isku mid waaye koonfur waqooyi meel walba joogay gobolada dhexe meel walba shacabka Soomaaliyeed waa mid waaye marka dadka noocaas ah waxaan leeyahay kawaantooba waxyaalahaas ina kawaantoodana aan runtii rajeynayaa dawladnimada ha waartaan leenahay dawladda Soomaaliyeedna ha guuleysato shacabka Soomaaliyeed ha guuleystaan waxaan kale u mahad celinayaa Master Sahil wiil dhaho Cabdiraxmaan ku magac dheer oo asaga arintan door weyn ku lahaa runtii oo min bilow ilaa dhamaad la socday oo wanaageedi lahaa marka asagana waan u mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinayaa Xasan Goodax iyo asxaab kale aad u far badan iyo Khalid iyo team kale iyo Xasan Baafi iyo Haashim iyo asxaab far badan oo runtii Ubax Cabdiraxmaan iyo oo arintan naftirkooda gees kaga jiray waan u mahad celinay faa'iido iyo team aad u far badan runtii aan leenahay sharaf leedihiin waxaan leenahay heshiiska faa'iido iyo saadaq ku farxow nolow ka noxowna naftawa ayaan leenahay marka
wanaaga loo kaco kolley hadal badan haa ma buuxsho waxaan ku farxay xitaa marka dagaalkooda laga dhex shaqeeyay labadooda xitaa blog ay saareen meel walba blog la iska saaray dadaal fara badan kadib waxaan ku guuleysanay blogyada inay iska qaadaan facebooka blog la iska saaray in la iska qaado whatsappkii iyo fiberkii dadka waxaas dhan ka shaqeeyay laakiin kadib in blog la iska qaado ay dib la isugu soo laabto sharaf weyn ay runtii inoo tahay marka shaqadan aan qabanayno shaqo dhalinyaro ah waxayna sumcad u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow dhalinyaradu inay isku fidiyaan dalka Soomaaliya oo dhan hoggaankiisa min bilow ilaa dhamaad inay isku fidiyaan marka ragga kale oo yaryarka ah ee facebookyada inay soo fadhiistaan 24 saac qabyaaladda iyo qurunka iyo balaayada iyo waxyaalaha loo joogin ka sheekeynaya waxaa leenahay waxaa idin wanaagsan caruurtiina inaad u shaqaysataan idinka shaqaysataan mustaqbalkiina ka shaqaysataan intaad 24 saacad facebooka aad dhex taagnaa leedeen marka walaalahay qiimaha badan waad mahadsantihiin wanaaga laga shaqeeyo dhalinyarada aadka u faraha badan ee facebook ku jirta ee wanaaga ka shaqeysa ee dawladnimada dadka ku wacyigelisa sida midnimo qaran iyo team kale aad u fara badan jiro aadan u mahadcelinayna runtii iyo dadkii arintan runtii ka soo shaqeynayay waxaan aad ugu mahadcelinayaa daryeel bulsho asxaabteyda qiimaha badan ee xamar joogta oo gobolada Soomaaliya oo dhan markay dadka inay wax ka ururiyaan geynaya ayagoo dhalinyaro ah oo qarax joog ah oo wadanka weligooda ka bixin in dadaal noocaas oo kale ay muujinayaan shacabka Soomaaliyeed oromada oromadan runtii maanta shacabkeena laynaysa in meel looga soo wada jeestaan rajeynina ee shacabka deegaanka ku dhaqan in arintan ay dhaxda u xirtaan sidii loo badbaadin lahaa dhiiga sharafta badan ee Soomaaliyeed intii shahiiday Allah u naxariisto gacan cadawaadisho waa shuhada inta kalena dhaawacan Ilaahay caafimaad Allah siiyo in arintaas laga dhiibiyo ayaan runtii rajeynaya waxaan sidoo kale aan rabaa inaan ka hadlo dhagarta imaaraadka carabta Ethiopia ay wado oo la rabo geeska Afrika inay isku fidiso oo Eritrea iyo maxaan ku iraahdaa iyo Ethiopia inay heshiyaan oo imaaraad uu ka dambeeyo la rabo dekadihii Djibouti in cunqabateen lagu rido in Soomaaliya waxaan ku iraahdaa oromadan iyo Ethiopiankan kale inay Soomaaliya u soo shaqo tagaan Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ma diidana in ganacsiga xorta ah ma diidana laakiin isku dhaqaaqa ama isku furan kale isku furo shacabka Ethiopia kuwan mar walba waxa dhibaato ku qaba dadka badan dadka yar ayaa dhibaato ku qaba anagana waa yarna dad yaranahay laakiin dadka badan faa'iido ku qaba arimahaas inaan ka feejignaano dhalinyaradaas inay baraarugto ayaa la rabaa inay baraarugto oo arimahaas ay la socdaan marka waxaan rajeynayaa waxaas oo dhan inaad la socotaan ayaan rajeynayaa oo Djibouti in garab la siiyo oo ciidamadii faraha badan Eritrea ee xadka Ethiopia iyo Eritrea joogay oo loo soo raray dhanka iyo Djibouti in cunqabateen lagu rido Djibouti in baaba laga dhigo kadibna Soomaaliya lagu xijiyo Afrika geeska Afrika baabul mandab iyo waliba meelahan kale oo dhan in Eritrea iyo Ethiopia ay u taliyaan ujeedka la leeyahay waa intaas inaan fikirnaa la rabaa social media inaan ka qalqeelino oo habeen walba live la soo gal qalqeeliyo micno ma sameeyno in la fikiro wax la baara loo baahan yahay waxaan kaloo rabnaa in aan la socono Ethiopia siyaasadeeda cusub shidaalkan laga qoday kilinka meel ka mid ah shidaalka ceerinka laga qoday iyo in oromada ay Soomaalida ay layso maxaa kalifa haddii qorshaha uu yahay oo imaaraadka uu yahay in deegaanka Soomaaliya laga sifeeyo si shidaalkaasi ay Soomaali uusan ugu gacan gelin ay ugu nafcin hadduu yahay waa in aan baraarugno waa muhiim dekadaha Djibouti la rabo in la cuno qabatay si loo furo dekada casab ee Eritrea leedahay in halkaas loogu rabeeyo cadeeda Eritrea ciidamo fara badan halkaas oo dhigta marka waxaas oo dhan in la socdo laakiin shacabka Soomaaliyeed mar walba way feejigan yihiin inta damiirka wanaagsan u saaxiibka oo qabyaalada aan ku jirina wax walba way la socdaan faa'iiso iyo way heshiyeen iyo maxaan ku iraahdaa saadaq way heshiyeen wanaagay ku heshiyeen waqti dheer iyo juhdi dheer kadibna guuleysta aadan u mahadnay saaxiibado faraha badan ee na daawanayna waxaan rajeynayaa inay dadka ay gaarsiiyaan marka hore loo socdo dawladnimada hawaarto ciidamadeena Soomaaliyeed ee geesiyaasha ee aan ugu magac darnay askarta ugu dulqaadka badan caalamkana oo xilligan shacabka Soomaaliyeed waqtiga ay dal hadla ay hurdayaan oo ciidamada ay wadooyinka ay taagan yihiin oo
amniga muwaadiniinta ay sugayaan waxaan rajaynaynaa ayagoo qalabkii la raba aysan haysan inay dadaalkaasi ay mar un ilaahay uu ka abaalmarin doono inta ciidamo shahiidayna ilaahay yaa u naxariisto shacabka soomaaliyeed inta dhibaatada iyo qaraxa iyo balaayada oo shisheeyaha uu soo maleegay oo ay ku dhinteenna ilaahay waxaan leenahay jannatu firdowso ilaahay ha ka waraabiyo habeen wanaagsan kula caamin wa antum bikhayr leenahay habeen wanaagsan nabad ku jiifta ku soo kaca intaas ayaan kaga tegayaa xumaanta laga waantoobo wanaaga haloo socdo dad badan waxa iska sheegayo dadka hadal wax ma sameeyo qofka wuxuu rabo sheegi karaa wax micno ma sameynayo laakiin qofka markaad fiiriso iyo wanaagaysa iyo wuxuu bulshada u hayo qof walba marka way caddaa marka barnaamijyadaas insha Allah oo arrimaha Soomaaliyeedna waa joogteen doonaa shacabka Soomaaliyeedna guuleysta gabdhaha Soomaaliyeed guuleysta wiilasha Soomaaliyeed guuleysta inta xumaha dadka u sheegtana waxa leenahay ilaahay ha ka sifeeyo khayran idin rajaynayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh